Salaamullaahi calaykum saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran kanaalkeena Kaatun Media aan kula wadaago maanta saaxiibka qiimaha badan oo aalado iyo qalab la mid ah kuwii la yaabka lahaa ay isticmaali jireen superhero ee khayaaliga ahaa. Gacmaha horumarsan ee samayska ah shakhsiyadii shirleyda ahayd ee filimka Spider-Man ninka loogu yeero Dr. Octopus wuxuu ahaa mid leh aaladan afarta gacmood leh ee la farsameeyay balse khayaaliga ah. Haddaba taasi waa khayaaliga sanadii 2018 wiil da'yar ah oo loogu yeero Aladihii ayaa sameeyay nusqo iyo nuqul dhab ah oo aaladaasi ah isaga oo ay caawinayaan rag xirfadan yaqaana ayaa u sahashay qalabka noocaasi ah cajiibka ah oo dad badan ay ku daawan jireen aflaamta oo keliya samayntiisa ayayna u kaashadeen tiknoolajiyada 3D iyadoo ayna raggii sameeyay ay doonayaan inay u adeegsadaan qaadida qalab culus maadaama ay tahay qalab loo adeegsan karo majaalka noocaasi ah. sidoo kale waxaa la filayaa inay adeegsan karaan dadka ka sheeganaya ama ka cabanaya dhibaatooyinka xagga dhaqdhaqaaqa sida niha oo qaba dhibaatadan oo kale. Mashruucan lagu sameeyay qalabka ayaa waxaa qarash gareeyay Eric Firman oo ah da'yar lacago fara badan ka sameeyay nidaamka loo yaqaano digital currency ama lacagaha digitalka ah ee elektarooniga ah isagoo waxbarashada ama iskoolka uga tagay da'da 15 si uu uga mid noqdo asxaabta milyaniska ah ee milyaneerada ah. Jaakada xabadda celisa jaakadan caanka ah ayaa lagu sameeyay saxiixa iyo feeryaamayntii Harrison Baseball iyadoo loo adeegsaday tiknoolajiyada nano taasi oo ka culays iyo ka miisaan yar qadar leeg 50%. jaakadan ayaa waxa gudaheeda la geliyay tuubooyin nano ah waana waxa ka dhigaya in aanu shay soo dhaafin una soo gudbin jidhka qofka xidhan balse jaakadan heerka sare ah loona sameeyay cidii dalbata oo keliya ayaa ku kacaysa qarash gaadhaya $20,000 Mareykanka. sidoo kale sport robotka eeyga ee injineerada base Dynamax ayaa sameeyay robotkan u qaabka eeyga ayaa markii ugu horeysay ku caan baxday samayntii ay sameysay Big Dog eeyga loogu talagalay inuu askarta ka caawiyo dagaalada balse 2015 ayaa la joojiyay soo saaristiisa maadaama buuqiisa iyo sawaxanka uu sameynaya ay badatay waxaana lagu bedelay mid ka xajmi yar kana buuq iyo sawaxan yar lana dheehday isagoo albaab furaya oo adeegsanaya gacantiisa. waxaa dhawaanahan loo adeegsanayaa isbitaalada si loo yareeyo iyo isku dheehanka bukaanada iyo dhaqaatiirta. sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa waxyaalo badan wuxuuna robotkani ku kacayaa lacag gaadhaysa $75,000 Mareykanka. qalabka duulitaanka Delos markii dad badani ay daawadeen shakhsiyadda khayaaliga ah ee Iron Man oo qalabkani lagu duulo wata ama xiran ayay jecleysteen inay wax la mid ah ama soo dhaweeyo helaan. Richard Brownie waa hindisaha sameeyay qalabkan lagu duuli karo ee Delos. qalabkan ayaa loo yeelay 6 matoor oo yaryar oo adeegsadaha u suurtagelinaysa inuu duulo halka fogaanta iyo xawaaraha uu jari kara ay gaari karto 135 kilomitir saacadii. inkastoo Brownie cadeeyay in xawaaraha intaasi uu ka sii badan karo haddana waxa uu intaasi ku sii daray inuu nooca cusub ee jaakadan ama qalabkan loo sameeyay laguna soo kordhiyay shaashad uu adeegsaduhu ka arki karo qadarka iyo inta uu leeyahay shidaalka ugu haray kamana badan karto in adeegsaduhu duulimaadka 10 daqiiqo ka hor inta aanu soo dhicin. inkastoo qarashka ku baxay qalabkani uu yahay $50,000 Mareykanka haddana lacagta uu ku iibsanayo adeegsadaha ayaa gaadhaysa $350,000 Mareykanka ah. ganaaga holaca ee xajmiga yar waa walax iyo shay la isugu daray tuurihii ama ganihii shabakadii caarada ee u gaarka ahayd Spider-Man iyo ganihii holaca ahaa ee uu adeegsanayay Bayrof filimadii X-Men waxaana shaygan loogu talagalay markii la nashqadeynayay in lagu xirto curcurada sida saacad oo kale. curcurada waa meesha ay isugu yimaadaan dhudhunka iyo calaacasha iskana galaan lafta dheer ee gacanta ee u dhaxaysa suxulka iyo jalaqleyda. qalabkan ayaa halka mar tuuri kara ama laga gani karaa 2 kubadood oo holac ah micnaha 2 kuul oo holac ah sababtoo ah wuxuu leeyahay 2 madfax oo yaryar
markii wax laga tuuraba dib ayay isku soo buuxinayaan. qalabkan ayaa lagu charger gareeyaa USB iyadoo loo adeegsanayo adeegsigiisa remote meel fog ama meel aan dhaweyn laga maamulayo, waana wax aad loola yaabo. qalabkan ayaad online ka iibsan kartaa adigoo bixinaya $150 oo doolarka Mareykanka ah. waxaa laga yaabaa inaad aalado kale u baahato marka aad adeegsanayso qalabkan, maadaama awoodiisu ay tahay mid aad u xadidan. ugu dambeyn, waad ku mahadsantahay daawashada qiimaha badan aad ku daawatay fiidiyogan adigoo waqtigaaga qiimaha badan noo soo huray. dhamaadka muuqaalkeena maanta, qalabkan iyo aaladahan kala duwan ee aan ku soo qaadanay barnaamijkeena keebaa ku cajabiyay, nagula wadaag qaybta hoose ee faallada. muuqaalkan ha ka hilmaamin inaad like saarto, sidoo kale aad subscribe dhahdo gambaleelkana furato si uu kuu soo gaaro muuqaalada mustaqbalka aan soo gelin doono.